بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبنا داونية كسر هذا مسرح نلشة ما أنت أديك أو داوضة هي أنا جو دادية وها مرتينو إنجنير يوسف محمد إسمان ولو يقانو إنجنير يو إنجنير كو وها inta badan uu ka sheekeeyaa arrimaha tiknoolajiyadda isaga oo bogo uu ku leeyahay baraha bulshada sida YouTube-ka iyo Facebook-ka bulshada ugu soo gudbiyo muuqaalo kala duwan oo la xiriira barnaamijyo markaasi manaafacaad u leh bulshada si gaar ah waxa uu diiradda u saaraa hadba barnaamijyada cusub ee ku shaqeeya kombiyuutarada kaamirooyinka iyo sidoo kale mobilada iyadoo intaasi ay sii dheer tahay waxyaabo kale oo tiknoolajiyadda la xiriira in uu sidoo kale oo xogo guud oo loo baahan yahay uu ka diyaariyo injineerka maanta waxaan kala sheekaysan doonaa isaga oo marti iigu ah masraxa nolosha sida loo hormariyo bogagga baraha bulshada gaar ahaan YouTube-ka iyo bogagga Facebook ama Facebook page injineer soo dhow mahadsantahay Ibrahim oo ku dhawahay barnaamijka masraxa nolosha aad iyo aad u mahadsantahay waa aan lafteeda ku faraxsanahay in barnaamijka ka soo qayb galo waayahay maanta dhowr su'aalood baan ku weydiin doonaa barnaamijka qaybihiisa dambana wuxuu yeelan doonaa su'aalo number iyo nasiib ah si fiican su'aalaha waxaan ku hormaraynaa marka la xiriira kobcinta bogagga engineer waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan ku weydiiyo qofku marka uu samaysanayo bog cusub ama kanaal cusub maxaa ugu horeyn looga baahan yahay ugu horeyn horta qofku markuu social media ku soo biiray gaar ahaan creator oo noqonayo page ama kanaal samaysanayo waxyaabo horta oo basic ah jiro inta uusan shaqada toos u soo galin ay tahay inuu ka soo bilaabarto ugu horeyn ay tahay horta inuu wixii horta asaga uu qaban karo hadii uu qaban karin qof kale uu wakiisho inta badan marka dadka maanta wax sameeyo ayaga isku tiirsan qofku wuxuu noqonayaa qof wixii dhan qabsan karo qof wixii dhan qabsan kara daarad inaad noqotidna waa inaad horta taqaanaa qalabkii waxa ku duubi lahayd hadii uu noqdo telefoon ama kaamirad inaad taqaan farsamadii markaas hagaajintii wixii aad markaas sameysay qabka aad u hagaajin lahayd oo sameyn lahayd sila midaan aad inaad haysatid qalabkii oo adiga aad lahaatid markaas aad mar walba isticmaali kartid goobtii oo kala kamid ah iyo ugu dambeyn qorshihii markaas aad u baahneed inaad soo gudbiso inaad si diyaariso intaas ay ugu muhiimsan isleeyahay markaas oo kale qofku waxa laga yaabaa in mowduucyo kala duwan intuu dhaxgali lahaa inay u diyaarsanaato horta marka hore waxaan ugu soo gudbinayo muhiimaddu waxa waa horta inaad yani waxa aad sameynaysid inaad yani marka hore aad si ogtahay marka si ogaatid waxa ku fududaanaya marka inaad sameysid aad iyo aad waxa jirta inta badan bulshada kuma baraarugsanay waxa la yiraahdo social media handling waxa la yiraahdo muxuu qofka u soo kordhiyaa ama qofka ka caawiyaa handalku sidiisa badan ba waa calaamadda username-ka markaas qofka uu leeyahay shabakadaas oo wuxuu ka caawinayaa horta inuu account-nadaada dhan ee markaas noqdaan wax wada magac toos ah hadii aad tahay qof markaas bulsho badan ay ku xiran tahay faa'iidooyinkiisa waxa kamid ah horta inay dadku ku wareeri doonin account-nada aad ku leedahay baraha bulshada magacaaga oo same ah hadii aad ku wada samaysato wuxuu ka caawinayaa bulshada inay si fudud ku heli karto account-kaaga laba inuu ka hortagi karo magacyada been abuurka laga sameysanayo account-nadaada hadii magac been abuur ah qaybta oo name-ka caadiga waa lagu sameysan karaa laakiin handle mar hadii oo shabakad gaar ah qof oo ka isticmaalo qof labaad ma ka dul isticmaali karo taas ayadana waxay ka hortagi kartaa in qofka uu account-nada been abuurka faraha badan laga sameynayo oo iskaga yareeyo sidoo kale for professionalism ina yani account-nadaada dhan ee markaas hal handle oo same wada leeyihiin yani waxay ka dhigaysaa qof laftiisa professional ah oo marka qofku hadii uu Instagram leeyahay Facebook page YouTube waa inuu hal username waa inuu leeyahay sidaas ayaa asaga u fiican si dadka ku xiranna markaas ay ugu fududaato inay soo helaan asagana macnaha oo wixiis ay secure ugu hadaan waa si fiican waa maasanta engineer su'aasha xigtoon ku weydiinaya waxa ay la xiriirtaa kobcinta bogga Facebook ama kanaal YouTube qofka hadii uu leeyahay sidee qofku u kobcin karaa ciwaanka si uu u noqdo ciwaan horumarsan oo dad badan ay ku xiran yihiin inaad horto bog markaas dad badan ku xiran yihiin aad abuurtaa waxay kaaga baahan tahay dadaal badan si aad markaas u sameysidna koow horta waxaad u baahanaysaa inaad sida markaas hore u soo sheegay ba xogta aad soo gudbinaysaa taqaanid waxa soo gudbinaysaa labo inaad markaas dad abuurtaa
dad markaad abuurto waxaad u baahan tahay markaas in dadkaasi aad markaasi يعني la socotaa dhaqdhaqaaqyadooda waxa ay jecel yihiin waxa ay rabaan dadka saaxiib la noqotaan waxa markaas ay codsanayaan ama ay jecel yihiin aad u soo celisaa taas waxay aad kaaga caawinaysaa markaas in dadka kugu xiran ay mar walba tiradooda ay sii korto midda ugu muhiimsan oo saddexaadna waxa waaye inaad markaas soo gudbiso wax gaar ah tusaale ahaan haddii aad ciyaaraha ka hadlayso kale inaad wax ciyaaraha ku saabsan aad soo gudbiso haddii aad wax kaleeto warbixinada ama wararka kale aad soo gudbinayso in wararka si markaas aad lafta aad u hesho dadka targetkaas xiiseynayo ama jecel oo aad u hesho si la mid ah waxaa jira algorithms la dhaho oo ayagana ka caawinaya in markii dad gaar ah ama wax gaar aad soo gudbinayso si gaarsiiso dadkaas waxyaabahaas dadka xiiseynayo kale taas oo ugu dambeyn markaas ka caawin karto inuu يعني si degdeg aad u kortay lafteeda waa hagaag waxaan markana tagaynaa su'aal qusaysa dhinaca Facebook Soomaalidu bariyahan dambe waxay aad u isticmaalayaan ama ay u sameysanayaan bogagga Facebook ama Facebook page horta marka hore teeba muhiimsan in qofku page-ku inuu follow la saaro ama in like la saaro page-ka teeba muhiimsan saameyn badan وهرين هرتو دنك فيسبوك مركا لا يمادو فلوغ مر دوا لوgu soo kordhiyay waligiisba page-ka Facebook waxay lahaan jireen like kaliya like taas oo marka macnaheedu oo ahaa qofka markuu page-kan support gareeyo ama content-iga la soo dhigayo oo ka helo inuu like saaro taas oo markii iska caawin jirtay in muuqaalada iyo xogaha uu soo dhigayo yani page-kaas oo news feed-kiisa ka arko hadda laakiin Facebook waxay soo kordhisay follow maadaama ay soo kordhisayna waa in follow iyo like wax uu ku kala duwanaadaa si ay dadka macna gaar ah ugu sameeyso markay macna gaar ah u sameeynaysan hadda like to kale tusaalahan waxay ka turjuntaa dadka markaasi page-kan faniska u ah ama taageerada u ah hadii aad tusaalahan page like saarto waxay ka dhignaanaysaa in page-kaas aad taageero u tahay laakiin kama dhignaanayso in page-kaas aad markaasi update-kiisa mar walba aad wada hesho laakiin hadii aad page-ka follow gareyso waxay ka dhignaanaysaa in update-kiisa mar walba markaasi uu soo gaari doono oo aad si degdeg ah ku arki karto si la mid ah qofku hadii page-kaaga uu like saaro automatically follow ayuu noqonayaa laakiin qofka haduu page-kaaga follow bas loo oo raaco taas waxay keenaysaa in page-ka macnaha ku qasbanaanay qofkan inuu page-kaaga like saaro taas ayaa marka maanta inta badan keento in page badan oo baraha bulshada ah follow-gooda iyo like-tooda tirada inay kala badato dadkuna ay ku wareeraan keeba saameyn badan keeba muhiimsan waa sax marka follow-ga saameyn badan follow-ga wuxuu ka caawinayaa in dad badan markaas ay xogtaada update-kaaga u gaaro taas ayaa marka muhiimadda koowaad ay tahay waxaan tagaynaa marka waxa jirta follow-ga laftigiisa qayb la yiraahdo hadda Facebook soo kordhiyeen la yiraahdo new page experience new page experience marka wuxuu u maleynayaa follow oo kaliya ayuu leeyahay marka ma la dhihi karaa qaabkii hore Facebook ee classic ah uu ka fiican yahay new page run ahaantii horta Facebook ayada lafteeda hadda waxay qorsheynaysaa in like taba gabi ahaan ay ka guurto waayo social media kala dhan hadirtaan meel like ay ka jirto maaha Facebook ayaa bilowday Facebookna hadda follow wuxuu u soo dartay in macnaha follow qiimihiisa ogaatay marka like ayada lafteeda Facebook tartiib ay u sii guuraysaa new page experience hadda page-ka loo soo fasaxay oo qaarkood shirkadu yani tijaab ahaan hadday u wado waxaad arkaysaa in like laga saaray maadaama like laga saaray follow-gii ayaa hadirtaan la doorbidaya sanadaha soo socdaan new page experience ay wuxuu noqon doonaa page-ka markaas saxda ah dadka isticmaalaan like-tan markaas meesha way ka bixi doontaa oo follow ay shaqeyn doona waayahay qofku asoo ku baraarugsanayna laga yaabaa in page-kiisa u soo dhacdo ogeysiis ah hadii uu page leeyahay in uu u guuro new page experience uu ka guuro classic marka waxa laga yaabaa qofku inuu ka laabto oo wax macna la u arki waayo horta new page experience-ga maanta tijaabo waayo dadka dhan lama fasaxo qof walba oo rabana yani inuu codsado ma heli karo tijaabo waaye wadan walba markaas samples iyo dad gaar ah markaas ay xusheen inta badan dadka oo maanta saameynta leh ama page-kooda ay verified yihiin ayaa lagu tijaabiyaa qiimeena socoto tijaabada socoto markii yani la isku soo raaco oo sidii ugu fiicneed experience-ga ugu fiicnaa laga soo gaaro dadka dhan waa loo soo fasaxi doonaa marka loo soo fasaxo markaas qof walba markaas hadii uu bilowga markuu arko ka laabtay tijaabada hadeertan ka laaban karaa laakiin hadhow wuxuu xor u noqon doonaa inuu asagoo si fudud experience cusub uu guur hadoo rabana qaybta hore uu soo laaban doono marka tartiib ayuu system-ku socdaa hadhowna marka la soo fasaxo qof walba asaa xor u noqon doono inuu maamusho ka laabto waayahay goor dhaweyd waxaa ka dhawaajisay barnaamij la yiraahdo algorithm oo ku shaqeeya aaladahan kala duwan ee baraha bulshada algorithm-ku waa maxay qaab noocan u shaqeeyaa
algorithmku horta waa instructions la diyaariyey oo system waaye marka waa la alifo waxaa loogu talagalay inuu markaasi dadka u fududeeyo waxa ay jecel yihiin waxa ay rabaan algorithm maanta shirkad walba oo markaasi baraha bulshada ku jirto ama internetka guud ahaan ku jirto way isticmaashaa laakiin qaab kala duwan ay isticmaashaa hadda tusaale ahaan Google oo kale algorithms aad u badan ayay leedahay kulligoodna intooda badan waxay ka shaqeeyaan wax raadinta search-ka haddii aad aragto haddii aad markaasi baarto wax ku saabsan caafimaadka automatical result-iga u baahneed iyo result-yadii u wada dhawaa aad helaysaa social media kala duwan sidoo kale waa Facebook maanta haddii aad wax ku qorto waxaas aad ku qorto iyo wax u dhow ku soo raadinaya algorithmkaas marka wuxuu u diyaarsan yahay ama maskaxaan u shaqeynaa inuu kula falgalo oo barto waxa aad jeceshahay waxa aad xiiseyso waxa aad rabto dhammaantood markuu soo wada ogaado adiga oo markaas ku tadbiiqin doonaa tusaale dadka qaar maanta waxa laga yaabaa in Facebook-gooda qaybta watch-ka ay ku arkaan inaad wararka jecesho kale inaad dhageystid wuxuu ka caawinaa maanta markaad war dhageysato oo bari war dhageysato waxaad arki doontaa isbuucan soo socda dhan inuu wixii page oo war ah oo adiga xataa aadan la garayn uu ku soo gaarayo haddii aad ku talagalin xataa si la mid ah haddii aad ciyaaraha xiiseyso kale page-ka ciyaaraha dhan waa lagu soo tixi doonaa adiga ayaan markaasi lagu soo fududeyn doonaa marka algorithmska dhanba system noocaas oo ku dhisan yahay mar walbana waa la hormariyaa aad iyo aad marka hore qofku waxbaa loo soo jeedinayaa haddii la arko qofkii wixii ka falcelinaya ama waa loo soo badinayaa aad iyo aad xataa page-ka news feed-ka caadiga xataa haddeertaan caadi sidaas u shaqeeya tusaale ahaan dadka saaxiibada kugu dhow ah ee aad mar walba ka falceliso bastiyada ay soo dhigaan ayaga ayaa mar walba lagu soo hormarinaa qofka ka falcelintiisa joojisid waa laga sii gaabinaya waayahay dadka leh kanaalada YouTube-ka ama bogagga Facebook sidee bay ku ogaan karaan waqtiga ugu habboon ee dadku daawadaan muuqaalada ay soo geliyaan bogaggooda labada meelba haddii ay noqoto Facebook YouTube maanta shaqo weyn ayaa ka socoto YouTube wuxuu lahaan jiray oo sanadka hore lagu soo kordhiyey Creator Studio Facebookna mar dhow ayaa asagana lagu soo kordhiyey labadaba qaybta Creator Studio ay qof walba kala socon karaa in detail waqtiga ku habboon dadka ku habboon iyo wax walba oo dhameystiran qaybtaas ayaa marka labadoodaba qaybta analytic ee gudaha ay waxay ku leeyihiin xilliyada ugu habboon oo markaas dadka kugu xiran adiga ay active yihiin xilliyadaas ayaana markaas saacad ama 2 saac ka hor ayaa habboon inaad markaasi soo dhigto si dadkii markaas si toos ah u daawan karaan waayahay maxaa farqiga u dhaxeeya lacagta laga sameeyo YouTube-ka iyo Facebook lacagaha laga sameeyo Facebook iyo lacagaha laga sameeyo YouTube labadaba maanta waxba kala duwano hal system ayayna ku shaqeeyaan labadaba waxay yani direct u saaraan oo inta badan dadka lacagaha ay ka sameeyaan waa xayeysiinta oo loo yaqaan adskaas inta badan marka qofku oo xayeysiintaas lacagta soo gasho Facebook ka soo gasho ay kala qaybsanayaan qaybna waxa qaadanaya qofkii kanaalkiisa ama page-kiisa lagu soo xayeysiiyay qaybta kalena waxa qaadanaya Facebook labadaba markaasi systemkaas ay isticmaalaan laakiin waxay ku kala duwan yihiin YouTube waxay leedahay platform la dhaho Google Ads markaasi lacagtaada iyo systemkaaga iyo waxa dhan maamulaya laakiin Facebook waxa dhan waa all in one oo systemkeeda maaliyadda iyo waxa dhanba waa hal system oo ayada kaliya ay u shaqeeyaan aad baan u fahmay runtii dhanka kale isla waxaan ku jirnaa qaybta lacag samaynta ee Facebook iyo YouTube ama monetization-ka qaybta la yiraahdo yaa sharciyo adag markii lacag samaynta laga hadlaayo Facebook-ga iyo YouTube-ka oo dadku inta badan xeerara qabta dabcan marka labadooda markaad isbarbar dhigtay qoladee sharciyo adag runaan Ibraahimo YouTube-ki Facebook-ga labaduba sharciyadooda mana fududo mana adko inaad lacag ka samayso labaduba ma fududo mana adka laakiin waxay ku kala duwan yihiin hadba markaas midkaasi challenge uu leeyahay haddii aan markaas tusaale ka soo qaato ciladaha marka haysto dadkeena oo Soomaaliyeed gaar ahaan dadka dalka joogo ciladaha haysto YouTube-na cilad weyn oo inta badan ka qabsata jiro Facebook-na cilad weyn jirto YouTube-ko kale asaga waxa qasab ku ah haddii aad markaas monetization-ka ama waxaad ka sameynaysid in address-kaaga lagu soo diro markaas pin code wax loo yaqaano code-kaas markaas aad gelin doonto inta badan marka dadka dalka joogo maadaama address wadanka uusan lahayn waxa dhibaatada ugu weyn ay ka qabsataa in code-kaas la soo diraayo wadan kale lagu hagaajiyo kadib loo soo diro taas ay process-kaas ay aad ugu dhib badan oo dadka ay qabsadaan laakiin dhanka Facebook marka aan dhaho Facebook cilada ugu weyn ee qabsata waxa waaye
locationka YouTube haddii aad markaas Soomaaliya joogto haddii aad Mareykanka joogto haddii aad Finland joogto same ayaad u tahay asaga locationka ma qiimeynaa laakiin Facebook waxaad ku qasban tahay inaad joogto wadan loo ogol yahay markaas in monetization laga sameeyo taas ayaa inta badan dadkan ku qasabto markaas ama inay wadanka ka tagaano ama qof kale to wadan kale jooga ee maamulka page-kaas u dhiibtaano ama cilado noocaas oo kale tahay aad iyo aad waxaan rabaa markana inaan wax ka weydiiyo badanaa dadka qaar YouTube-ka isticmaala ama Facebook-ka isticmaala waxay adeegsadaan muuqaallo aysan iyagu soo duuban ama iyagu aysan lahayn taasna dabcan waxay noqonaysaa waa xuquuq ama xuquuq dhowr ama copyright maxay yihiin khaladaadka ugu badan ee Soomaalidu ay galaan marka la eego xuquuq dhowrka la joogo Facebook ama YouTube-ka marka la joogo markaad u fiirsatay bulshada ilaa muuqaalada fasax la'aana badan la adeegsaday si fiican horta copyright-ka shuruuc uu leeyahay platform walbana shuruucdiisa u degsan tahay waa sax dhibaatada koowaad horta Soomaaliya hadaan la sameeyno horta inaan shuruuc soo akhrin marka lagu qabsado kadib aan ku baraarugno inta badan maanta qaladaadka dadkeena ku baraarugeen waa qalad ku soo dhacay oo dhibaatooyin badan ay ka soo gaareen copyright-ka hadii aan dhaho waxyaabo horta basic horta gaar ahaan bulshadeena waxyaabaha basic ah ayuu markaas qalad ahaan ku galaan ayagoo markaas kaga faa'iideysanayo inay dhahaan tusaale ahaan ayna waqtiga bixin oo kale warar ama documentary ama yani warbixino kale dad ay soo dhigtaan iska soo degso page-ka ku soo upload gareyso adduunka waxa sharci darro ka tahay waxyaabaha basic marka oo dadkeena aan ku arkay ay galayaan waxay tahay horta ku muuqaal dhameystiran oo ayaga aysan lahayn inay soo gashtaan markay soo gashtaan waliba haddii aad soo gashato xataa Facebook iyo YouTube way kula socdaan way ogaanayaan inaadan waliba ka sii fasax qaadan qofkii ahaa adduunka haddii 10 second la iska isticmaalayo email la isku soo diraa yani xogtaasaan rabaa warbixin noocaas u isticmaali rabaa ma ii fasaxaysaa inaan qaato kadib ayaa la isku fasaxaa ayadoo adiga laga fasax qaadanin ayaa la iska qaadanaya xogtii waa la soo publish gareynaya ciladaas marka page-kaaga way saameynaysaa kanaalkaaga way saameynaysaa dhibaato badan ay ka imaado dhibaatada labaad dadkan ku baraarugsaneen waxa waaye music-yada la isticmaalayo codadka ama music-iska markaas loo isticmaalayo background-ka codka cilado badan ayay markaas keentaa lacag waaye dad ayaa sameeyo waa la gataa marka haddii aad mid markaas iska aragto ama saarneed muuqaal aad soo aragtay ama YouTube-ka aad kala soo degtay haddii aad soo dhigato copyright waa lagu qabsanaa music-yada ka daaran dadka qaar waxaa jira Soomaalida vloggers waaye vlog ay duubayaan ama meel waxay joogaan public ah music-yada meelahaas ka daaran copyright waa hadhow haddii aad soo geliso muuqaalkaas waa lagu qabsanaa marka culaysyadaas oo kale dadkan inta badan way qabsadaan mana ku baraarugsan laakiin waxa haboon inay ku baraarugaano waayahay copyright-ka marka waxa tiri muuqaalkii isagoo xuquuqdiisa cid dad ay yeelan karaan muusiga laftigiisa cod qof kale leeyahay xitaa haddii muuqaalkaaga ku soo darto copyright ayaa kugu dhacaya ama waa lagu qabsan karaa waayahay waxaa jira website-yo laga iibsado muuqaalada oo qaarkoodna si free ah looga degaa qaarna waa laga iibsadaa sidoo kale codad ku iibiya jira kuwana si bilaash ah looga degaa kuwaas adeegsigooda ka waran platformyo badan jira horta waxyaabana free waaye waxyaabana iib waaye hadda YouTube-na way soo kordhisay Facebook-na hadda way leedahay qayb oo library ah oo codadka markaas loogu talagalay dadka YouTube iyo Facebook ku jiro inay si bilaash ah u isticmaali karaan wax copyright aan lagu qabsanayn kuwaas wad isticmaali kartaa haddii aad markaas wax iibsan karin si la mid ah footage waxaa jiro muuqaalo oo aad b-roll ahaan u isticmaali karto oo website-yo caadi u isticmaalo oo soo dhigaa jiraanba website-yaas oo kale haddii markaas aad ka qaadato kuwaas wax copyright ma lahaanayaan si la mid ah waxaa jiro website-yo iibiyo footage-yadaas iyo codadkaas oo ay ka mid yihiin Envato iyo Epidemic Music way badan yihiin aad kuwa badanaa jiro haddii aad markaasi iska diiwaan geliso oo aad ka soo qaadato codadka kale license ay lagu siinaya xataa hadhow haddii copyright lagu qabsado sharciyad aad u haysataa aad ku dacwoon karto lagana qaadi karo si fiican u fahmay engineer qaybihii dambe ee wada sheekaysigeena ayaan soo gaarnay su'aasha ugu dambeysay ku weydiinayo aan rajaynayo saaxiibo badan inay sugayaan waxay tahay in badan waxaad ku soo shaqaysay xirfadda muuqaal duubista iyo sawir qaadista intaba sidoo kale aaladaha kala duwan ee tiknoolajiyadana runtii aqoon fiican u leedahay dhalinyarada iyo cid kasta ee aqoontaas u baahan
ma laga yaabaa dhowaan inaad fursad u siiso si aad aqoontaas kugu jirto aad maaragtay ula wadaagto run ahaantii Ibrahim waa qorsheynayaa qorshe socdo waaye oo waliba dhowaan la soo gabagabeyn doono koorsooyin iyo training markaas aan ugu talagalay in markaas dadka ay kaga faa'iideystaan gaar ahaan kuwa baraha bulshada kala quseeyo si u kobcin lahaayeen ganacsi ahaan sida loogu faa'iideysan lahaa iyo waxyaabo badan marka ilaa hadda waxaan qorsheynayaa September sanadkan oo kale inaan soo gabagabeeyno insha Allah waan soo ilaamin doonaa waxa waaye saaxiibadana la soo wadaagi doonaa insha Allah waayahay waxaan rajeynayaa saaxiibaduna in bugaga aad ku leedahay baraha bulshada inay la socon doonaan haddii uu sareeyo saamaxo gabagabadii masraxa noloshaan soo gaarnay qaybtan waa lambar iyo nasiib waxaan soo diyaariyay 5 su'aal kasta waxaa ku xusan 5 qaybood 5taas qaybood waxaa laga yaabaa in nasiibkaaga mid ka mid ah inuu ku jiro marka bal waan eegaynaa nasiibka inaad isku wacan tihiin markii number iyo nasiib la yiraahdo lambarkee jeceshaa inaad qabsato aniga nambarada kisiga horta jecelahay inaa aad u qabsado 3 5 7 nambarada noocaas oo kale aad u jecelahay nambarkee u badan tahay 7 nambar 7 aad u jecelahay waayahay dad badan aad jecel runtii anaana kamida waayahay engineer horta sanadkii ugu horeeyay ee aad computer dul fariisato goorma ahayd sanadkii ugu horeeyay hadii aad sheeg dadka qaar waxay islaan ninkan aad u daaweeyay waya daaweyni ma jirto horta adoo yar anaaba arki jiray oo maaragtay sawir edit gareynaya qiyaastii haddeer waxaa laga joogaa 10 sano marka waa ogahay qiyaastaas xilligaas waa ogahay xilliyadaasna kama agdheero dabcan daaweyni kama tarjumayso yani jacaylka aad u qabtay sax waay horta ayay ka tarjumaysaa sanadkii ugu horeeyay computer isticmaal waxay 2007 anoo aad u da'yar waa xasuustaa computer markaas oo aaba xaafadan oo keenay isticmaali jiray computerkaas ugu horeeyay horta aanbo asagaan ku bartay asagaan wax badan ka haleeyay asaga marka si fiican ula qabsaday ilaa ugu dambeyn desktop oo ahay Windows XP oo ahay I think wali wuxuu ahaa shirkadda HP markaas sanadkii ugu horeeyay aan isticmaalay 15 sano laga joogaa waayahay su'aashan waxay qusaysaa كمبيوترادي aad soo isticmaashay dabcan muddo 15 sano computerada kala duwan soo isticmaalaysay computerada aad soo isticmaali jirtay midkii ku xiiso galiyay iyo nasiibkaagan maanta isku eegayna dhowr shirkadood halkan ku soo xusay waxaad kala dooranaysaa marka 26 ilaa 30 waxa ku xusan 5 shirkadood oo computer soo saara waxa laga yaabaa shirkadii aad jeclayd aad u riyaaqday inay kamid tahay inaad haleeshaa dhici karto inaad haleeli weysaa dhici karto marka kala dooro 26 ilaa 30 shirkadda ku soo baxdaan arkayna waxaan dooranaa 29 engineer waxa ku soo baxday Acer wali ma isticmaashay maya waliga ma isticmaashay wali computer oo Acer am isticmaalay kee u badan tahay aniga inta badan hadii Windows la dhahaana waxa aad u isticmaali jiray laptopyada iyo computerada Lenovo iyo Apple labadaas favorite ah hadda marka waxa waa shirkad oo brand oo Windows am isticmaalabo computerada customized ka u guuray Apple kan waa isticmaalaa waayahay nasiibkaas waa hareer marne marka su'aasha labaad ayaan u gudbaynaa editing in muuqaalo la habeeyo la hagaajiyo sanadkay kugu horeysay isna waxaan u maleynayaa dadkii hore inaad ku jirto Windows Movie Maker iyo Windows Movie Maker inaad ku soo adeegataa isticmaalay laakiin I think muuqaal barnaamijkii ugu horeeyay aan muuqaal ku hagaajiyo wuxuu ahaa Pinnacle Studio asagan ka soo bilaabay waqtiga markuu socday Sony Vegas oo soo guuray Premiere Pro waa isticmaalay iyo Final Cut Pro DaVinci Resolve laakiin maalinta soo guuray Premiere Pro wixii ka dambeeyay barnaamijyada kale to baahiyo gaar ah oo ugu baahnaa ku isticmaalay laakiin Premiere Pro waa waayahay markana si aan u ogaano bal nasiibkaas inuu hagaagi karo iyo in kale 31 ilaa 35
3 iyo 30 waa sida saxda ah Premiere Pro aad xiiseynaysa Soomaa si fiican waxa ku soo baxay Premiere Pro kaas lama qaldi karo nooc qaldi karo ma waa saxday aad u saxday runtii nasiibkaaga waa ku hagaagay markaas qaybta saddexaad ama su'aasha saddexaad ayaan u gudbaynaa nasiibka waxaa jira website-yo runtii dadku aad ay uga faa'iideystaan koorsooyin online ah adiguna dabcan boorama waa aan wada joognin waa ogaa oo wax badan aad diyaarin jirtay haddeeroo muqdisho ah ku sugan tahayna wax badan inaad diyaarisaan rajaynaya oo online-ka ka diyaarisay marka nasiibkan waxaan ku eegaynaa website-kii kuugu fiicnaa waxa ugu fiican aad ka faa'iiday markan waxaa kala doorataa 36 ilaa iyo 40 waxaan dooranayaa 37 waxaa ku xusan Skillshare wax ma ka faa'iidaysatay weli run ahaantii saxda bintiga saabaxda waa isaga soo ma muuqaal aan dhawaan soo sameeyay oo ku sheegay haye Skillshare waa meeshan ugu jeclahay inaan markaas wax ka faa'iidaysto oo runtii waxyaabo kala duwan laga helay muuqaal sababtuna waa meel kale waxa ka barto platformyo badan oo wax ka bartay way jiraan ka faa'iido laakiin Skillshare waxa ku jeclahay waa waxaad baranaysaa wax weyn ma ahan wax yar aad baranaysaa hadii aad rabto muuqaal sameynto kale waa field aad u balaaran dhinacyo badan ayaa laga bartaa Skillshare wuxuu leeyahay yani wax gaar ah oo muuqaal sameynta ku saabsan aad course ka dhiganaysaa 1 saac iyo bar 2 saac aad ayaan u koobihiin oo maalintii waxaad ka faa'iideysan kartaa waxyaabo badan marka waa sax jawaabtaas waa nasiibkii labaad oo ku hagaagay masha Allah markana waxaan fiirinaynaa dunida waxa aad loo hadalhayaa siiba qarnigan dad la yimid fikrado runtii hal abuur aad u hirgalay hal abuur ganacsi ilaa 5 qof aan soo xulay 5 qof waxay ku kala xusan yihiin 5 number adigu midka aad aragti ahaan engineer ahaan UU ahaan aad u aragto ninkii ugu aragtida fiicnaa ayaan markan eegaynaa iyo nasiibku bal inay ishaleelaan iyo in kale waxaad kala xulanaysaa markana 41 ilaa 45 44 waxaa ku xusan Abuukar Albadri ma taqaana si fiican barnaamij uu sameeyay oo Soomaalidu ay ku kulanto oo la yiraahdo Baaldahab si fiican ka waran barnaamijkaas ma dhax gashay sidee buu kula ahaa wallahi waa daawaday barnaamij aad cajiib u ahaa horta wax badan laga faa'iideysan karo aad iyo aad taas waa ka gudbaynaa markan waxaan aadaynaa su'aasha ugu dambaysa waxayna la xiriirtaa aalad aad markasta isticmaasho waana kaamirada shirkadaha kaamirooyinka sameeya shirkadda markasta adiga dooqa koowaad ku ayaan markana aan qiimeynaynaa waxaad kala xulanaysaa 46 ilaa iyo 50 waxaan ka dhiganayaa 50 oo ku soo gabagabeynaya 50 waxa ku soo baxday Sony ayaa ku soo baxday ma isticmaasho weli Sony kamarada Sony waa isticmaalay waxaan ka isticmaalay hal kamarada oo la dhaho Alpha 7 III sax laakiin favorite-kayga ma waayahay shirkadee u badanta aniga dadka inta badan ila soo shaqeeyay ama aad saaxiibaduna way yaqaaneen waa Canon family waxa waaye waa Canon kamarada inta meel ku arkaayo dhankaas kuma doorsanaysid si fiican maxaa ku dooratay Canon oo kaamirooyin kale uga duwan tahay runtii kaamirooyinka su'aashaas dadka qofka marka la weydiiyo horta kaamirooyinka waxa kuma kala duwano oo kaamirad walba oo shirkad tayo leh ay soo saartay mideeda kale dhigad way jirtaa oo kaamirad kale u dhiganto laakiin inta badan dadka waxa saameeyo oo markaas u janjeeriya dhinac gooni ah waa meesha ka soo bilaabeen aad iyo aad ani maalintan kaamira isticmaal bilaabay Canon ka soo bilaabay marka Canon ka ayaan ilaa hadda markaas la qabsaday systemkeedii wixii qofka marka dabcan kaamira marka la adeegsanayo waa laba qaybood qof uu isticmaala sawir qaadis iyo qof uu isticmaala muuqaal duubis labadaba ma is leedahay way ka kaafin kartaa qofka oo haddii uu muuqaal u baahdana baahi kasta oo muuqaal duubis u baahdo wuu ka dhaxli karaa haddii sawir qaadis u baahdana sidoo kale
baahiyaas ma dabooli kartaa runtii Canon marka lagu dhahayo hal kaamirad ma ahan waa sanad walba kaamirooyin badan soo saartaa versionno kala duwan ay leedahay sax marka versionadaas ayaa markaas ku kala fiican qaarna waxay ku fiican yihiin muuqaal duubista qaarna sawirada ay ku fiican yihiin marka ma dhihi karno maanta kaamirad noocaas ayaa jirto oo sawiradeeda iyo muuqaaladeeda iyo tayadeeda dhan ay dhameystiran yihiin laakiin dhanka muuqaalada kaamirooyin aad ugu fiican jiro dhanka sawiradan kuwa ku fiican jira ayaan sidoo kale waatay marka Canon inta soo isticmaalaysid tan ugu muuqaal duubista fiicaneed soo aragtay runtii ilaa hadda laba kaamirad ayaa ugu fiican midna hadda soo baxdo way cusub tahay laakiin wali tijaabadii ma galin oo toos looma arkin laakiin inay fiican tahay aad loo sheegay laakiin inta soo arkay aniga kaamirada ugu fiicneed Sony oo kaamirada ugu fiicneed oo Canon ah oo muuqaal duubto waxaan ku arkay kaamirada R5 oo ilaa muuqaal 8K oo raw ah duubayso tayadan aad u fiican tahay marka dhanka sawirada hadii la dhahana 1DX ayaa ayadana sawirada aad u fiican yihiin oo la amaanay injineer aad u mahadsan tahay masraxa nolosha oo maanta martiigu ahayd intaas ayaan jecelahay inaan ku soo gunaanado waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah soo hurtay iyo inaad iga aqbashay inaan wareysi ka qaado waliba wareysigan oo aad runtii ula xiriira waxyaabo ay bulshadu aad u daneeyaan siiba dhalinyarada waan rajaynayaa saaxiibo badan inay ka faa'iideysteen mar kale mahadsanid malaayiin jeer aad iyo aad u mahadsantahay saaxiibayaal masraxa nolosha intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa toddobaadkan waxaa marti ii ahaa idinkuna aad daawanayseen injineer Yuusuf Maxamed Cismaan oo loo yaqaano injineer Yuyu injineerku waxa uu baraha bulshada akoonada uu ku leeyahay uu ku soo gudbiyaa barnaamijyo la xiriira tiknoolajiyadda si gaar ah wuxuu uga sheekayaa barnaamijyada ku shaqeeya telefoonada kombiyuutarada iyo sidoo kale kaamirooyinkana dabcan midba midda ay ka fiican tahay oo markaas soo baxday ayuu ka sheekayaa intaasna waxaa sii dheer koorsooyin kale oo la xiriira arrimaha tiknoolajiyadda tan iyo kulan muuqaalkeena dambe toddobaadka xiga iyo marti kale oo culus waxaan aniga iyo saaxiibkay Wardi Axmed Cabdulle oo dhanka kaamirada ii joogay idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo